fariintani waxay ku socotaa gabdhaha isticmaala waxaan la yiraahdo promotional caynka ama eyelashka indhaha baalashooda in baalasha kale ku dul dhajista. hadda ka hor waxaan soo aragnay gabadh wadamadaasi Yurub mid kamid ah ka soo jeeday wadankeedii hadda ma xasuustay oo il beeshay yani waxaan indhaha la gashanay sababkii isheedii sidaa ku weyday. adiga haddii aad ka mid tahay dadka aad u jecel inay makeup-ka baalasha indhaha ay marsadaan, hadday noqoto indho kuul, hadday noqoto eyelasheska iyo noocyada kala duwan ee indhaha lagu qurxiyo xilliyada aroosyada aadayaan oo kale, haddana ku dhiban nabraha indhaha ka soo baxaya marka qaar xitaa dhakhtar marka indhaha u tagtay uu ku dhaho timaha baalasha indhahaaga waxaa ka soo bax agoola ka soo baxay ama baalasha indhaha ku gurmaayo, caqabad dadka badanaa haysato waayo marka qaar xitaa ragga lagu arko. dhakhtar indhaha markay u tagaana badanaa waxaa la dhahaa iska nadiifi, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego biyaha caadiga xataa lagu nadiifinayo wax micno gooni ma samayso. xilliyada hore xitaa buwaagta markaas aan jaamacadaha ka dhigan jirnay waxaa lagu qori jiray in shaambada caruurta loogu dhaqo. shaambada caruurta marka cilmi baaris dhawaan oo tiro badan ilaa 30 gaarayso waxaa ku cad in maadooyinka qaar ku jiro aan indhaha loo isticmaali karin oo keenayso qaleel oo loogu talagalay bas shaambooyin u gaar ah in loo sameeyo oo baalasha indhaha lagu nadiifinayo. bukaanadan ugu dambeeya hadda dhawaanaha ay imaanayaan sidaas aan u sheegaya sababtoo mar walba waxaan ku dadaalaa cilmi baaris ugu cusub iyo technology ugu cusub markaas oo aqoonta ugu dambeysa in bukaanka lagu update gareeyo. laakiin waxa ku jira shaambooyin u gaar u gooniyaa jiray, laakiin haddeertaan xarunta indhaha waxaan keenay shaamba u gooni ah oo indhaha lagu nadiifinayo bukaanaas markaas aad ugu dhiban jahwareerka dheeraa marka halkaas uu ku egyahay. keliya qaabka loogu nadiifinayo muhiima oo rabo muuqaalka nafirka inaan idinku tusiyo oo ah sidaan in aad indhaha marka hore isku xirtid shaambadana sidaan indhaha aad ugu nadiifisid markaa ugu dhaqdid timaha baalasha indhaha saa ugu nadiifisid aad biyo ku dhaqdid kadibna aad iska qalajisid. marka waaba jeceshahay mar walba baalasha indhahaaga aad isqurxisid inaad nadiifisidna jeclaaw. haddii marka dadka aad ka mid tahay aan soo sheegay shaambadu waa diyaar, xarunta indhaha diyaar oo kugu yahay, waa soo dalban kartaa haddii xamar joogto iyo haddii adduunyada dacaladiisa meelaha kala duwan aad joogto.